بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن وصدح يتومنك بيشا ماج سنة كالبكون لباتن يلح أو كوبهجن لأفر يلباتنك بيشا رمضان سنة كون أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ ده هجرية ده كسو دوادا مركله يبرامجكي ورارك ما أنت قضبضا آن إذي كوهيننا وحا كمدا در زیر این باران و در زیر این به هیچ وجه ومدحدا إيران أو كبد يهي مدحوينها علي لاريجاني أو هنينكا ugu doonista badan Mareykanka iyo Israa'iil ee dagaalka hogaaminaya iyo mas'uuliye kale oo maanta magaalada Dahraan kaga qayb galay munaasabada maalinta Qudus oo lagu garab istaagayo Falastiiniyiinta xilli duqeymo lagu hayo magaalada caasimadda ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan oo shaaciyay in maanta weerar duqeymaha ay ku garaaceen wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidamada Israa'iil iyo goobo kale oo xasaasi ah tirada askarta Mareykanka ee ku dhintay colaadda bariga dhexe oo sare u kacday Trump iyo xogayihiisa dagaalka oo wacad ku maray in Iiraan ay la kulmi doonto duqeymo culus iyagoo ku faanay in si xun loo garaacay ciidamada waddankaasi midowga Yurub oo Iiraan ka codsanaya inay u ogolaato maraakiibtooda inay ka gudbaan marinka Hormuus Xisbullah oo weeraro sawaariikh iyo daroon isugu jira ku qaaday waqooyiga Israa'iil dhanka ciidamada Israa'iil waxay Lubnaan ka geysteen duqeymo dhimasho iyo dhaawac sababay dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa dhawaada mar kale daawadaya si aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in duqeyn diyaarada aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday ay ku beegsadeen xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ee ku taal magaalada Beersheba bayaan ka soo baxay ciidanka oo laga sii daayay telefishinka dawladda Iiraan ayaa lagu sheegay in sidoo kale diyaarada daroon ah ay ku weerareen taliska guud ee ciidamada Israa'iil ee isla magaaladaasi iyagoo intaa ku daray in howlgalladooda ay sii ballaarin doonaan saacadaha soo socda waxaana ay sheegeen in ay beegsanayaan saldhigyada iyo goobaha ay ku sugan yihiin wax ay ugu yeereen maamulka sahiyuuniyadda dhinaca kale warbaahinta Israa'iil ayaa ka soo xigatay waaxda difaaca gudaha Israa'iil in seeriga digniinta ka bixiya gantaalada laga maqlay meelo ballaaran oo ku yaala koonfurta Tel Aviv iyo sidoo kale magaalooyinka Ashdod Asqalaan iyo Qudusta la haysto warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaysa in nidaamyada difaaca cirka hawada ay qabteen gantaaladan laga soo tuuray Iiraan oo ku soo jeeday hawada bartamaha Israa'iil war kale oo dhanka Iiraan ku aadan wakaaladda wararka Maahir ee dalka Iiraan laga leeyahay ayaa waxa ay sheegtay in 7 dhisme ay burbureen halka 100 kalena waxyeello ay ka soo gaartay weerar Mareykanka iyo Israa'iil saakay ay ku qaadeen deegaanka Javadiyah ee koonfurta Tehran geesta kale wakaaladda Maahir ee laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa sidoo kale sheegtay in 2 qof ay ku dhinteen halka 9 kale ay ku dhaawacmeen weerar diyaaradaha Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala deegaanka Fashafoyah ee koonfurta magaalada caasimadda ee Tehran dhanka Mareykanka taliska dhexe ciidanka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in dhammaan 6 shaqaalaha ee saarnaa diyaarad booyada oo shidaalka hawada ku siisa diyaaradaha dagaalka ee ku dhacday Ciraaq ay dhammaantoodba geeriyoodeen tani waxay ka dhigaysaa tirada askarta Mareykanka ee uu qaranayo in ay dhan tahay 14 tan markii colaadda Iiraan ay bilaabatay sida mas'uul Amerikaan ah uu u sheegay telefishinka Al Jazeera inkastoo Iiraan ay sheeganayso in 500 oo askari oo Amerikaan ah ay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay intii ay wadeen duqeymaha ka dhanka ah saldhigyada iyo danaha Mareykanka ee gobolka isla wararka Mareykanka xogayaha dagaalka ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka Pentagonka wuxuu ku andacooday in Mareykanku uu burburinayo awoodda military ee nidaamka Iiraan
si aan dunida horey loogu arag wuxuu sheegay in ciidamada Iiraan weli awood ay u leeyihiin inay gantaallo iyo diyaarado daroon ah ku weeraraan dariskooda iyo Israa'iil laakiin wuxuu yiri waxay noqdeen kuwa la weeqay awoodooda oo aan dagaal geli karin Hexid ayaa sheegay in ka badan 15,000 oo bartilmaameed oo Iiraan ah la garaacay isagoo ku faanay in aysan jirin dal kale oo awood u leh inuu sameeyo waxa Mareykanka uu sameynayo iyo waliba Israa'iil oo u kaashanayo Pete Hegseth waxa sidoo kale uu sheegay in marka ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ay kor u eegaan cirka ay arkayaan laba calan oo ku sawiran dhinacyada diyuuradaha kuwaasi oo kala ah calanka Mareykanka iyo xidigta Daa'uud ee Israa'iil sida dalka uu dhigay Hegseth ayaa intaasi ku daray in Iiraan aysan lahayn difaac cirka ciidan cirka ama ciidan badeed isla markaasna gantaaladooda goobaha laga rido iyo diyaaradaha daroonka la burburinayo ama hawada lagu qabanayo waxaana uu sheegay in diyaaradaha daroonka sidoo kale ay noqdeen kuwa si toos ah loo burburiyo wuxuu ku andacooday in tirada gantaalada Iiraan ay ridayso ay hoos u dhacday 90% halka weerarada diyaaradaha daroonkuna hoos u dhaceen 95% isagoo sidoo kale ku eedeeyay Iiraan inay muujinayso quus marka ay u dhaqaaqayso marin biyoodka sida hadalka uu yiri war kale oo isla Mareykanka la xiriira madaxweyne Donald Trump ayaa goor dhaweyta u sheegay telefishinka Fox News ee Mareykanka laga leeyahay in Mareykanku si xoog leh u garaaci doono Iiraan toddobaadka soo socda wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanku uu ilaalin doono maraakiibta marin biyoodka Hormuz maraysa haddii loo baahdo inkastoo arrintaasi aysan suurtagelin ilaa iyo markii uu sheegay war caynkan ah toddobaadkii hore waxaana lagu soo warramayaa ilaa iyo 1,000 markab inay ka gudbila yihiin oo ay ku xayiran yihiin biyaha gobolka kuwaasi oo ka gudbila marinka Hormuz wararka kale ee colaadan la xiriira ururka Hezbollah ayaa sheegay in ay gantaallo iyo diyaarado daroon ah ku beegsadeen deegaanada Nahariya iyo Kiryat Shimona ee waqooyiga Israa'iil ururka ayaa sheegay in tilabadaasi ay qayb ka tahay digniin dhowr ah oo loo diray deegaanada Israa'iil ururka ayaa sidoo kale sheegay inuu gantaalo ku garaacay saldhigga kormeerka hawada ee Meron iyo xarunta hawlgallada hawada ee ku taal gobolka Falastiin ee la haysto sida uu yiri ururka Hezbollah goorsii horeysay Hezbollah ayaa ku dhawaaqday in dagaalyahanadooda gantaalo ay ku duqeeyeen saldhig ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin bariga magaalada la haysto ee Safed kaas oo lagu sheegay in si toos ah loogu beegsaday goobtaasi dhanka Israa'iil wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa goor dhaweyta waxa uu daboolka ka qaaday in dowladda Lubnaan waa sida hadalka uu yiri ay khiyaantay Israa'iil isla markaasna ay dib u dhigtay hubka dhigista Hezbollah taas oo uu sheegay in ugu kici doonto qiimo culus oo sii kordhaya wuxuu sheegay in Israa'iil ay ka go'an tahay inay ilaaliso dadka ku nool waqooyiga Israa'iil ayna samayn doonto wax kasta oo nagama maarmaan ah si taasi ay u hirgelisana wuxuu sheegay in duqeymo lagu hayo Lubnaan iyo Iiraan Katz ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Lubnaan ay wajihi doonto in laga beegsado goobaha kaabayaasha dhaqaalaha ayna lumin doonto dhul iyo hub maadaama ay ku guuldareysatay inay hubka ka dhigto Xamaas waa Hezbollah sida hadalka uu yiri haddii aan eegno weerarada kale ee Iiraan ay ku hayso gobolka wakaaladda wararka AFP ee laga leeyahay Faransiiska ayaa sheegtay in qarax uu ka dhacay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta isla wararkan wasaaradda arrimaha gudaha ee Imaaraadka ayaa sheegtay in nidaamyada difaaca cirku ay la tacaalayaan qatar gantaal waxaana dadka loogu baaqay inay ku sugnaadaan goobaha ammaanka ah war kale oo colaadda gobolka bariga dhexe la xiriira haddii aynu eegno wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanka ayaa soo xigtay mas'uuliyiin Mareykan ah oo sheegaya in Pentagonka uu ka fiirsanayo maraakiib dagaal oo dheeraad ah oo loo diro gobolka bariga dhexe si ay u ilaaliyaan maraakiibta shidaalka qaada ee ka gudbaya marinka Hormuz saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku aysan bilaabi doonin ilaalinta maraakiibta ilaa iyo heerka hanjabaadda Iiraan ay hoos u dhacayso taliska dhexe ciidanka Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu ka dalbaday maraakiib
in lagu soo kordhiyo kuwa hadda howlgallada ka wada gobolka bariga dhexe isla wararkan wargeyska Financial Times ka soo baxa magaalada London ayaa soo xigtay mas'uuliyiin sheegaya in dalalka Yurub ay bilaabeen wada hadallo ay leeyihiin Iiraan si ay uga wada xaajoodaan heshiis u ogolaanaya maraakiibtooda inay si ammaan ah uga gudbaan marinka Hormuz. dhanka diblomaasiyadda ra'iisul wasaaraha waddanka Jarmalka Friedrich Merz ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka Iiraan uu saameyn weyn ku leeyahay dalkiisa isla markaasna ay tahay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo. wuxuu sheegay in Jarmalku uusan qayb ka ahayn dagaalka Iiraan isla markaasna uusan qorsheynayn inuu ku biiro dagaalkaasi. waa sida hadalka uu u dhigay. hagaag daawadayaal waxaan u gudbaynaa sheekooyin cajiib ah oo la xiriira maanta waxa ka dhacay magaalada Tehraan. Mareykanka waynu maqlaynaa xogeyihiisa dagaalka hadallada ka soo yeeraya ee ah Iiraan in la daciifiyay oo diyaaradaha Israa'iil iyo Mareykanku hawada ay sidii doonaan u marayaan, laakiin maanta fariin baa ka dhacday magaalada Tehraan. haddaba maxay yihiin waxyaabaha lala yaabay ee maanta ka dhacay magaalada Tehraan, halkaasi oo madaxdii dhammayd ay banaanka u soo baxeen, halka madaxdii Israa'iil oo ku jira Netanyahu aan ilya baar la saarin oo ay ku hoos jiraan goobaha gabaadka loo galo gantaalada sida warbaahintu ay sheegayso. haddaba wararkaasi iyo qodobo kale intaanan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiin. soo dhawaada markale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnow HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag, halkan waxaa idinkaga muuqda malaayiin Iiraaniyiin ah oo isugu soo baxay magaalooyin kala duwan oo ka mid ah waddanka Iiraan. arrintan waxay noqotay arrin fariin ah. duqeymaha socda, weliba dad baa ku dhintay duqeymaha. haddana mar allaaliya marka duqeyn la maqlo waxaa lagu hayaa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. magaalada Tehraan, Isfahaan, Qom, Shiiraaz, dhammaan magaalooyinka waddanka Iiraan ayaa la isu soo bannaan baxay. maxaa loo soo bannaan baxay? maalinta Qudus. waa maalinta adduunyada oo dhan loogu talagalay in la garab istaago dadka Falastiiniyiinta, dadka Iiraaniyiinta ayagoo hogaamiyahoodii la dilay oo duqeymuhu ay ku socdaan oo la weerarayo ayay sidaan u soo baxeen. meesha wadamo badan oo Carbeed ama waralba loo hayn maanta waxa ay tahay inay tahay maalinta la yiraahdo maalinta Qudus. arrinta cajiibka waxay tahay madaxdii Iiraan ayaa banaanka u soo baxay. madaxweynihii ninkan waa Cali Larijani, waa ninka loogu raadinta badan yahay. wuu ka daran yahay hadda ayatullah la magacaabay, ninkan ka daran. waa ninka dagaalka hogaaminaya, waa xogayaha amniga qaranka, ninka dagaalka tooska maamulaya weeye ninkan, sida Iiraaniyiintu ay sheegayaan. banaanka ayuu u soo baxay. dhuumasho iyo god buu ku hoos jiraa waxaas ma jirto. yaa kaloo soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi. yaa kaloo soo baxay madaxweynihii Iiraaniyiinta Mas'uud Pezeshkian. magaalada dhex lugeynaya. haddaba arrintan iyo waxa laga yiri iyo sheekadan aynu ku sii soconnee. xubno fara badan oo ka mid ah mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada Iiraan ayaa socod lagu tilmaamay fariin cad oo ku socota Mareykanka iyo Israa'iil. waxay ku mareen wadooyinka caasimadda Tehraan si ay uga qayb qaataan isu soo baxa maalinta Qudus oo ah maalin loogu talagalay in lagu garab istaago dadka Falastiiniyiinta. inkastoo duqeymo xooggan Israa'iil iyo Mareykanku ay ku hayeen qaybo ka mid ah magaalada. madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian, wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi, xogayaha golaha ammaanka qaranka Cali Larijani iyo sidoo kale madaxa garsoorka Qolam Hussein Mohseni Eji iyo mas'uulka amniga gudaha Ahmed Riza Radan ayaa lagu arkay iyagoo dhex socda dadweynaha wadooyinka Tehraan intii lagu jiray barnaamijka lagu xuseeyay maalinta Qudus. muuqaalada qaarkood ayaa waxa ay muujinayaan iyadoo mas'uuliyiintu ay isugu soo baxeen
halkaa oo kumanaan kun oo qofna ay wadooyinka tubnaayeen inkastoo duqeymuhu ay socdeen saacadihii lasoo dhaafay kuwaasi oo lagu beegsaday gudaha magaalada Tehraan taasi oo qayb ka ah xiisadda military ee sida weyn u socota sawirada iyo muuqaalada ayaa muujinaya mas'uuliyiinta oo ka qayb qaadanaya socodka banaanbaxa isla markaasna la sheekaysanaya muwaadiniinta halka banaanbaxayaashu ay sii wadeen halkudhegiya ka dhana Israa'iil iyo Mareykanka iyagoo adkeynaya maalinta Qudus inay sii socon doonto inkastoo duqeymo cirka ay socdaan warbaahinta maxalliga iyo tan caalamiga ee ka soo waramaysa gudaha caasimadda Iiraan ayaa fagaaraha kacaanka iyo goobo kale waxay ku soo bandhigeen muuqaalada iyo sawirada boqolaal kun oo qof oo isugu soo baxay goobahaasi iyo magaalooyin kale iyadoo dadkuna ay ka qayb galayeen dibadbaxa waxaa sidoo kale ka mid ah dadkii ka soo qayb galay banaanbaxani Mohammed Mokhber oo ah xubin ka tirsan golaha talabixinta ee nidaamka isla markaasna la taliye u ahaa hogaamiyihii sare ee geeriyooday Vaid waxa uu sheegay in hogaamiyaasha ka qayb qaatay socodkan ay muujinayaan in ay ka jawaabayaan hanjabaadaha iyadoo Ali Larijani uu sheegay in caqabadaha iyo weerarada Mareykanka iyo Israa'iil kaliya ay korinayaan in shacabka Iiraan ay noqdaan kuwa ku dhagan midnimadooda dalkooda iyo madax banaanidooda isagoo ka faaloonaya muuqaalkan agaasimaha xarunta carabta ee daraasaadka Dr. Maxamed Saalix Sadq Hajiyan ayaa sheegay in sawirada muujinayaan madaxweynaha Iiraan oo dhex socda muwaadiniinta isagoo aysan u muuqan in ilaalo badan ay la socdaan wuxuu tilmaamay in hal qof oo kaliya oo xirnaa jaakad u ekaa qofka ilaalinayay halka madaxweynuhu dhex marayay banaanbaxayaasha isla markaasna sawirro uu la geliyay dadkii ka qayb qaadanayay banaanbaxa Sadxejiyan waxa intaasi uu ku daray in muuqaalka Besajkiyan ee dhex socda dadka shacabka ah inkastoo hanjabaadda Israa'iil ay socoto ay tahay fariin dhanka siyaasadda ah oo loo dirayo Washington iyo Tel Aviv inkastoo banaanbaxayaashu ay isu soo baxeen haddana waxaa la maqlayay dhawaaqa dayaanka madaafiicda intii uu ka qayb qaadanayay socodka maalinta caalamiga ah ee Qudus wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in qiimaha shidaalka caalamka laga yaabo in uu sii kordho maalmaha soo socda wuxuu ku eedeeyay Mareykanka iyo Israa'iil inay ka dambeeyaan xiisadaha gobolka iyo saameynta ay ku leeyihiin suuqyada tamarta wasiirka Iiraan ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo Israa'iil inay gobolka u jiidayaan sida uu yiri musiibo isagoo ku baaqay in lagula xisaabtamo siyaasadaha ay ka wadaan gobolka Araghchi ayaa sheegay in dadka Iiraan ay weli si tiro badan ugu soo baxayaan wadooyinka inkastoo weerar lagu hayo wadankooda dhankiisa madaxa garsoorka Iiraan Qolam Hussein Mohajani Ejeh ayaa sheegay in ka qaybgalka shacabka ee banaanbaxayada maalinta Qudus uu muujinayo mowqif adag oo lagu taageerayo qadiyadda Falastiin haddaba arrinta xiisaha leh waxay ahayd ninkan markuu hadlayay duqeyn baa dhacday haddaba aynu daawano jawiga sidoo ahaa iyo cabsi la'aanta ka muuqatay iyo dadkii oo iyaga laftigooda dhiirigelin samaynaya آخرین نفس و تا آخرین لحظه در مقابل اونها بایستیم. حاج آقا همین الان که من داشتم شما ساختن باشید مردم از این تابلوها نمی‌ترسن. مردم ملاحظه می‌کنن. در زیر وهاجد haddaba arrintan ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay fariin cad iyadoo inta badan madaxda Israa'iiliyiinta aan la arag sida wasiirkii amniga qaranka Itamar Ben-Gvir iyo xubno kale oo aad u cadcada isla markaasna dagaal ku baaqi jiray ayaa haddana waxa la yaaban yahay